وصلتي إنجلند وأنا كمان أرنيا سيدا دي وعسون تعاو برامجك الأولي بين مدة عن بيج فان وها أنا عاو فدي أدبان وفرح سناي أدبان كو سلامية لما شغالة RTN إمام مكرم سلامية وكوكا يا هرمر في عنو سمي أو dadka Soomaaliyeed magaaladan degan wax badan ka bedelay aadna loogu xiran yahay qurbaha iyo meeshaan ka yimid iyo meelo badanba waliba England aan kugu amaanayo dadkii wax badan TV-gan kicitaankiisa ka qayb qaatay ka mid ahayd aad baa mahadsantahay adiga oo ku hadlaya de waxay oran jireen siyaasiyiintu markay ana ku hadlaya afka xisbiga noocaas oo kale marka inuu ku hadlay aniga ku hadlaya afka reer America fanaaniintii dadkii oo dhan iyo inta fanaan oo halkan fanaanin badan oo halkan ka baranay waa jirta runtii oo aanan aqoonin oo aad u aan bartay maantana fanaanin waa weyn marka daas waxyaabaha ku dhahay wax badan baad ka qabatay barnaamijkan aad iyo barnaamijkii wadooyinkan hadda mar dhow ku weydiinay oo aad u qosol banaan aan aad u jeclaa ma sha Allah wadigi markaad aragtay igu yiri na barnaamijkii wadooyinka iyo su'aalaha iyo dadkii aad markaad wax weydiinaysay dalmarow waxaan bashaqahay dalmar baad weydiinaysaa Xuseen buu ku sheegay aniga dadkaas waliba waxaan aad ugu qosli jiray sida dadka qaar u kala lahjad yihiin iyo su'aalaha aad weydiinayso si fahmayno mar baa ka soo fakin jirtay ruux miyuu waalaya waxaan ku weydiin nooga jawaab markii dhagaxayno markaas waxaan ku xalaayay inaan TV live ka safro waa maxay deemka maxaad weydiisay dalmaday dalmaro dadka marka 2018 dad baa waxay igu yiraahdeen bal waxaan rabaa bal inaad cabirto xigooda ilaahay rabbiyo hana dilin inta dalmareemay markaas maanta miyaan ku war ka war haduu yahay dhimatid ma waan qabaa kula